taariikhdu marka ay ahayd 1971dii madaxweynihii xilliga ee Maraykanka Richard Nixon ayaa waxa uu telefishan uu ka dhahay Maraykanka hadda kadib waxa uu joojiyey in doolarka lagu qiimeeyo dahabka. khudbadanina waxa ay taariikhda u gashay in la dhaho Nixon shock, waayo go'aankani waxa uu saamayn uu ku yeeshay adduunka oo dhan, in lacagtii doolarka hadda kadib in aanu dahabka lagu qiimayn karin. yacni sistamkii financialka oo dhan ee adduunka ayaa burbur uu ku dhacay. waxa uusan Maraykanka uu damacsanaa waddo kaloo alternative ah inuu u gudbo, iyada oo lacagtiisu ay tahay lacagta adduunka laga isticmaalo. Maraykanka waxa uu heshiis ula galay Sacuudiga. heshiiskaasina waxa uu ahaa in dowladaha shidaalka dhoofiya ee carabta in ay soo saaraan go'aan ah shidaalka lacagta keliya ee lagu iibsan karo, yacni xilliga dhoofinta waa lacagta doolarka Maraykanka oo keliya. haddii heshiiskani ay aqbalaan carabta, waxa uu Sacuudiga Maraykanku u ballan qaaday in uu siin doono hub aad u badan, sidoo kalena amniga Sacuudiga waxaa sugi doona Maraykanka. sidoo kale askarta Sacuudiyiintuna Maraykanka ayaa tababar fiican siin doona. intaa oo keliyana kuma koobna horumarinta iyo dhisidda dalka Sacuudigana Maraykanka waxa uu ka qayb qaadan doonaa kaalin aad weyn. si kooban, horumarka Maraykanka yaala waxaa la keeni doonaa dalka Sacuudiga. shardi waxaa ah oo keliya si ay waxyaabahani u dhacaan waa in shidaalka Sacuudiga lagu iibiyaa lacagta doolarka. Sacuudiyiintuse go'aankani marka ay aqbaleen, adduunka oo dhan waxaa qasab noqotay lacagta doolarka in la wada isticmaalo, sababtoo ah maanta qofka si kastoo malaayiin yuuro ama malaayiin diinaar ah uu haysto, suurtagal ma aha in waddamada carabta sida Sacuudiga in shidaal lacagta uu kaga soo iibsado. waxaa qasab ah lacagta qofka akoonkiisii ku jirto in bilowgii lacag doolar ah inuu ku sarrifto, kadibna waa in sida shidaalka qofka uu ku soo dhoofsadaa. tanina Maraykanka waxa ay siisay awood aad u weyn. dhaqaalaha Maraykanka ayaa durbaba aad u kobcay, doolarkuna heer waxa uu gaaray aanay suurtagal ahayn in qiimihiisii hoos loo dhigo, waayo waddamada carabta doolarka ay shidaalka ka faa'iidaan deenta miisaaniyadda Maraykanka ayay ku soo iibsanayaan. lacagta halkaa ay ka faa'iidaanna waxa ay rabaan ayay carabta ku maalgashan karaan. yacni si kooban, bangiga dowladda Maraykanka doolarka ka baxay iyo midka soo galayaba carabta door muhiim ah ayay ku leeyihiin. sidaana doolarka waxa uu ku noqday mid istaabiil ah oo taagan, waayo cidna ma aragta maanta doolarka oo maalin keligeedii 10% hoos u dhacaya, ama doolarka oo maalin gudaheedii 10% sare u kacaya. lacagta doolarku waa mid istaabiil ah oo booskeedii taagan. keliya waxaa isbeddelaya lacagaha kale. haddii wax un qiimo ay yeelanayaanna waa lacagta kale, waayo Sacuudiga ayaa booskani buuxinaya. nidaamkanina waxaa loo yaqaanaa nidaamka petrodollar. doolarka in uu ku dhisnaado tamarta enerjiga ee shidaalka. haddaba sistamkani petrodollar Maraykanka waxa uu ka dhigayaa mid super power ah oo adduunka oo dhan dhaqaalihiisii uu ku gumaysan karo, sababtoo ah carabta ayaa waxa ay haystaan enerji aanan laga maarmin. doolar walbo carabta ay soo ururiyaan iyaga ayaa bangiga Maraykanka buuxinaya. tanina waxaa ka dhashtay in Maraykanka si aanan xisaab lahayn in doolarku iska daabacdo. haddii aad dhahda maanta waxaan u baahanahay 1 milyan oo doolar, Maraykanka ilbiiqsi gudaheedii ayuu madbacadda uu kaaga soo daabici karaa. tanina waa in aanan loo barbardhigin daabicista lacagaha ee waddamada kale. lacagaha daabicistoodii xaddhaafka ah sicir bararka uu ka dhashto si degdeg ahna dadku ay ku dareemaan waa lacagaha aanan internationalka ahayn. lacagta Maraykanka maadaama adduunka oo dhan laga isticmaalo, baahida loo qabana aad ay u badan tahay. inflation inuu ku imaado lacagtani doolarka marka loo fiiriyo lacagaha kale aad ayay uga adag tahay. iska daabicista lacagaha aanan xisaabta lahayn sannado badan Maraykanka maadaama sidani uu soo waday inta uu rabo ee doolarka uu iska daabacanayay, hadda waxa ay gaartay lacagta doolarka heer uu ka muuqdo inflationka. heerka qiimo la'aanta lacagta doolarka ee Maraykanka maanta waxa ay maraysaa 7.5%,
yacni si fudud oo qof walba uu fahmi karo haddii aan u dhigno wax walba oo suuqa yaala maanta boqolkiiba 7.5 lacag kale oo dheeraad ah waa in aad ku dartaa. Haddii shay qiimihiisu uu yahay maanta $100, qiimo la'aanta lacagta doolarka ku dhacday aawadeedii heerka inflationka waxa uu sabab u noqday in $7.50 in aad ku darto. Dabcan inflationkanina sannado badan maadaama uu soo socday wax un ay ku darsamayeen boqolkiiba 1, boqolkiiba 2 sannado badan gudahoodii, dadku si fiican kuma ay dareemayaan. Soomaaliya oo kale waddamada lacagta doolarka sida aadka u isticmaalo inflationkani lacagta doolarka iyo go'aanada bangiga Maraykanka ee Fed saameyn weyn ayay ku leedahay. Haddii aad shaqayso lacagta bishii ku soo gashana waagii hore ay kugu filnaan jirtay, kolkani lacagta doolarka aawadeedii iyo go'aanka bangiga Maraykanka ee Fed waxaa kuu bilaabmayo marxalada in lacagtu ay ku deeqi kara weyso waxyaabihii aad horay u soo iibsan jirtay oo waxaad arkaysaa kolkani qiimo ay ku kordheen. Haddii aad la yaaban tahay suuqyada oo dhan waxyaabaha sababta ka dhigay in qaali ay noqdaan, waxaa asal u ah Maraykanka, sababtoo ah heerka daabacaadda lacagta doolarka ayaa waxa uu gaarsiiyey inflation dhan boqolkiiba 7.5, yacni $100 walbo heerka inflationka ku jira ee qiimo la'aanta waa boqolkiiba 7.5. Tanina waxa ay sabab u sii noqonaysaa in shidaalka qaali uu noqdo, waayo shidaalka soo saaristiisii iyo ka shaqayntiisii laftinkeedii 100,000 oo shaqaalaha ayaa halkaa ka shaqeeya. Inflationka doolarka ku jira aawadeedii shidaalka in lacag lagu kordhiyey ayuu sabab u noqonayaa. Adduunka oo dhanna sidaa ayay saameyn ugu yeelanaysaa, laakiin dadka badankoodii waxa ay ka fiiriyaan qaali noqoshada wax walbo shidaalka oo keliya. Doolarka laftinkiisu in wax qaali ay noqdaan door muhiim ah ayuu ku leeyahay, waana sababta ugu weyn ee asalka u ah bangiga dhexe ee Maraykanka Fed in ay kordhiso ribada, yacni interestiga lacagta doolarka. Haddana sidoo kale waxa ay saameyn ku leedahay kolkani waddamada yaryarka ah ee lacagta doolarka isticmaala. Kolkani waxaa waddamadani ku adkaan doontaa in ay helaan lacag doolar ah. Doolarka ayaa kolkani qiimihiisii kordhi doona, muddadanina suuqa oo dhan wax doolar ah in aad ka heshaa aad ayay u adkaan doontaa. Caqabadda kale ee imaanaysa ayaa waxa ay tahay lacagaha caadiga ee waddanka laga isticmaalo qiimaha lagu sarrifo ayaa aad u kordhaya. Tusaale, halkii doolar haddii lagu sarrifo 25,000, kolkani waxaa lagu sarrifayaa halkii doolar 35,000 iyo 40,000 iyo wax ka sii badan. Marxaladanina dadka shacabka uma ay dhawaan karaan inay wax iibsadaan, waxa ayna sabab u noqonaysaa in dowladda ay dhaleeceeyaan. Dhibaatooyinkanina waddamada soo kobcaya si gaar ah Afrika ayuu saameynayaa.